waa shirkadda diyaaradaha ee ugu ballaaran Afrika. Haatanna waxay duulimaadyo toos ah ka bilaabaysaa Puntland markeedii ugu horeysay abid, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir ee Garowe. 32 qof ayay sidee markan oo ay toos uga timi magaalada Addis Ababa, kuwaas oo ku faraxsan duulimaadkan tooska ah. dareenkaygu waa farxadaan la soo koobi karin inaan helay duulimaad caalami ah isku xiraya Puntland iyo dunida si toos ah. daal la'aana, tacab la'aana, marka waa farxad weyn. sanadii hore rafaad baan ku soo gaari jirnay baasha iyo sirc. hadda laakiin waxaan ku soo gaarnay muddo ka yar 2 saacadood. madaxa diyaaradda Itoobiya ee Soomaaliya Ambassador Yamane waxa uu qabaa in duulimaadkani uu xoojinayo xiriirka labada dhinac. The new service will significantly increase the strength between the brotherly relationship. adeegan cusub ee duulimaadku waxa uu horumarinayaa xiriirka walaaltinimo midka dhaqan iyo guud ahaan waxyaabaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. waxa kale oo tani xoojinaysaa isu socodka dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal. duulimaadkani waxa uu fursad u yahay qurbo joogta Soomaaliyeed ee jooga dalalka Mareykanka, Kanada, Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika, kuwaas oo safaro toos ah ku imanaya gurigooda hooyo. duulimaadkani waxa uu noqonayaa mid toddobaadkiiba 3 mar ah, waxaana ku rajo weynahay inuu 2-3 bilood ee soo socda noqon doono maalin walba toddobaadkii. marka laga yimaado diyaaraddan inay markii ugu horeysay Puntland, haddana 40 sano kadib ayay Soomaaliya timi sanad ka hor. diyaaradda Itoobiya waxa Soomaaliya ugu dambeysay sanadihii 70-meedyadii, markaas oo dagaal dhex maray labada dal, balse tan waxa loo sababaynayaa isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya. dowladda Puntland waxay filaysaa in duulimaadyadani ay isu furayaan Puntland iyo caalamka kale, sida uu xusay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. falaydkii u horeeyay ee ah international carrier waxaan aad uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqeysay dhammaan. waxaan ku faraxsanahay in maanta bulshada reer Puntland oo aan ogahay caqabadaha ka haystay isku xirka falaadida caalamiga ah inay maanta guushaas ay noo soo hoyato. runtii waa maalin taariikhi ah. waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airlines mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirtay. dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin. insha Allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono, waayo bilowga maanta inta timid iyo inta raacaysa daliil u ah. waxaa dhawaan imaan doono diyaarado kale oo caalami oo markay maqleen danaynaya iyaguna inay yimaadaan. diyaaradda Itoobiya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo caalami ah ee duulimaadyo toos ah ka bilowda magaalooyinka Puntland iyo Garowe iyo Boosaaso. dowladuna waxay filaysaa in tani ay horseedi doonto duulimaadyo kale oo caalami ah. Maxamed Salix, SBC, Garowe.